aad baa idin salaamayaa Nursam kulley waqti dambe waa hadda waxaa halkan ka dhacay abaarihii 10kii caawa fiidkii in baskan uu wadadan birta soo jaray uu gurigan iskuulka ama wal iskuul ama kulubka uu yani uu ku dhacay kadibna ilaa iyo dad 8 gaar ah ayaan xisaabiye inta dhaawac gaartay dhaawacaasi dadka gaaray qofkii ugu horeeyay soo baxaan ahaa aniga waxaan ku soo baxay 10 sakan ku soo baxay waxaan soo qaatay kabaha gudaha lagu isticmaalo soo qaatay way kabaha hadda wata ma wadanin markaan soo baxay waxaan arkay indhey qabatay dad fara badan oo ilaa 8 gaaraya oo dhiig ka wada socdo oo gabdhi wiil isugu jiraan oo dhaawac ah iyo waxaan arkay dad oo iyana runtii waa yeelo ah oo iyana dhaawac gaaray arkay oo 8 qofood ah kadib aad baan u naxsanaa waan naxay laakiin markaan arkay boolis meesha joogin ambulance isin joog waxba isin joog waxaan go'aansaday in aniga mas'uuliyadda aan qaado oo aan booliska waco oo aan la xiriiro booliska aan wacnay booliska 3 jeer soo waceen adreeskeena weydiiyeen marka hore wacnay waxaan u sheegnay inaan dhawaxaas dhaceen wixii u sheegnay way noo soo ceshay waxay dhaheen adreeski waxaan si adreeskan siinay hadda markay noo soo ceshay waxay dhaheen wax oo booliska la meedii maadeen maya kadib way soo gaareen way imaadeen ilaa 7 macna maxay baabuurta booliska iyo dadweynaha ay imaadeen waxaa kaloo imaaday waxyaalaha kuwa gargaarka loo yaqaan imaaday intaan imaana ka hor aniga hoolkan tagay waxaan soo qaaday laba maxay ahayd waxyaalaha fashil loo yaqaan soo qaatay dadkii halkan daadsanay dhaawacna ayaan u qaybiyay halkaas dhinacaas shana mid Afrikaan ah ku dhacay oo maxay oo aad suxun u dhaawacmay ku dhacay marka waxa runtii aad looga naxay ahayd tirada hadda inta la sheegay waa 12 weeye xaaladoodu aad bay u kala daran yihiin ilaa 6 qofood baa waxa la sheegay dhaawac halis ah inay qabaan marka qaarna waxa la geeyay leefata qaarna waxa loo qaaday isbitaalka marka inta indheyga ay qabteen ilaa 2 waxaan arkay dhaawac culus qaba ayaan arkay oo runtii aad uga naxay waana maxay ahayd waxa runtii aad uga naxay warkiisada aan siin wareysi ilaa doo taaganahay waxaan rabnaa in kaliya waxa waaye in dadka macna maxay ahayd markay caawin baahan in la caawiyo oo markaas qofku uusan waxba argagax uusan dareemin qofku intuu noolanayaa qofku wuu dhimanayaa laakiin waxa muhiim ah qofku inuu soo baxo oo asoo dadkiisa matalayo shaqadiisa dadka matalayo Soomaaliyeed dadka matalayo in uu wadana dadkii uu caawiyo oo ka dhex muuqdo marka maxaa sababi karay in darawalka jidka ma jamba ka jiray inkastoo booliska hadda aan su'aalaha ay ku weydiinayaan laakiin waxay tahay inta aad u qiyaasi karto sababtu kulley way badan tahay laakiin aniga waxaan isleeyahay kulley dhowr jeer ayaa macna maxay baska laftiisa ana maxay dadka inoo sheegeen saarnaayeen ay sheegeen in markii hore uu soo bas soo socdo in 2 jeer uu wadada ka baxay kadibna markii dambe uu halka ka baxay marka wadada leenkaas kale inuu qabsado marka leenkan buu soo galay dhinacan ka soo baxay san wadada u soo baxay hadda uu taagan yahay hore u socday marka gurigaas ayuu soo ugu dhacay marka waxa runtii aad looga naxawaaye dadkuna kulley way kala duwanaayeen wax area-dan waa area nacaan ma area iskuulaha guriga maxaa area-dan waa area nacaan halkan waxa weeye waa iskuulka bal iskuul waaye halkan waa sports clubka Starling waaye halkan waa Frigo waaye garoonkan wuxuu ka dhaxeeyaa iskuulka clubka Starling iyo Frigo ayuu ka dhaxeeyaa garoonkan arkaysan sidoo kalena hool baa halkaas ku leenahay oo dad kala duwan ay ka soo qayb galaan oo ay ku ciyaaraan ayaan ku haysanaa marka guriyahan arkaysan guriyo dad degan yihiin waaye saa arkaysanba marka dadka inaa soo baxay caaw halkan caruur iyo ciroolo waa la buuxay dad badan baa soo baxay marka aad bay u daawanayeen wixii halka ka dhacay